kulankan wada tashiga ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii loo dedejin lahaa dhamaystirka warbixinta qaran ee heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta ee Soomaaliya kaasoo ah mid ahmiyad weyn u leh dalka isla markaana door weyn ka qaadanaya sidii xuquuq dhameystiran ay u heli lahaayeen carruurta Soomaaliyeed waxaana soo agaasintay kulankan wada tashiga wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta ayaa mid loogu gol leeyahay si looga hortagi lahaa xadgudubyada iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan carruurta isla markaana ay carruurta u heli lahaayeen daryeel ku filan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Deeq Suleymaan Yuusuf oo daafuray kulankan wada tashiga ayaa sheegay in ansixinta warbixinta hordhaca ah ee heshiiska caalamiga carruurta uu yahay mid ahmiyad weyn u leh carruurta Soomaaliyeed heshiisku wuxuu qorayaa marka aad saxiixdo heshiiskaasi aad ogolaato waajibaad baa adna kugu waajibaya dawladaha saxiixay waajibaad baa saaran waajibaadkaas oo ah in la soo diyaariyo warbixin hordhaca oo ka turjumaysa muddo 2 sano gudahooda maalintaas saxiixda 2 sano gudahooda 2 sano kadib inaad soo gudbiso warbixin hordhaca oo ku saabsan marxaladda carruurta dalkaas ay ku sugan yihiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo heshiiskan wuxuu si guud iyo si gaar ahaaneedba u taabanaya xuquuqda carruurta caalamka ha noqoto ta siyaasadda ha noqoto ta dhaqaalaha ha noqoto ta bulshada marka dowladdeena iyadoo muujinaysa inay ka go'an tahay inay carruurteena ay helaan xuquuqdooda waxaanu bilownay geedi socodka aan ku diyaarinayna warbixinta maanta aad halka u fadhidaan in aad ansixisaan Soomaaliya waxay noqotay dowladdii 196 ee qayb ka noqotay heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta sanadkii 2015 ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay si rasmi ah u saxiixday heshiiska caalamiga xuquuqda carruurta ee qaramada midoobay Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed من مقدشو